السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. wuxuu Louis Upton sanadkii 1886 ku dhashay magaalada New York kadibna qoysku waxay u guureen wilaayada Michigan. halkaan waxaa ku dhashay Louis walaalkii Frederick ka oo dhashay sanadkii 1890 waxayna isaga noolaayeen nolol caadi ah sida carruurta kale ee xilligaasi ku nooleed deegaanka. maalmo ayaa si caadi ah u soo martay ilaa kolkii dambe ay dhacdo masiirka noloshooda waxweyn ka bedeshay taa oo ahayd shil gaari oo ka dhacay mid ka mid ah wadooyinka wilaayada Chicago. waxaana ku geeriyooday shilkaasi aabihii reerka masruufiyay ka oo qoyskiisa kaga tagay guri la'aan. Louis oo carruurt u weyna isla markaana da'diisa ahayd 17 sano jir ayaa ku qasbanaaday inuu ka tago goobaha waxbarashada isla markaana galo suuqa shaqada si uu u biilo qoys ka kooban hooyo 4 carruur ah. isla markaana ka mid yahay Frederick oo 13 sano jir ah. uma suuragelin Louis inuu aruursado xoolo badan laakiin wuxuu ku qasbanaaday inuu shakhsiyaad xoogaa lacag ah ka soo deensado. hal sano kadibna waxa uu soo gashay inuu ku soo laabto goobaha waxbarashada isla markaana uu ku guuleysto dhamaystirka waxbarashadiisa. markii uu gacanta ku dhigay shahaado baaj ah wuxuu u shaqo tagay wilaayada Chicago asigoona shaqo ka helay mid ka mid ah shirkadaha halkaasi ka howlgala. intii uu Louis ka shaqaynayay shirkadani ay isbarteen mid ka mid ah shaqaalaha kala shaqeeya shirkadda markastana way sheekaysan jireen ilaa kolkii dambe Louis saaxiibkii la yimid fikrad. wuxuu Louis ku dhahay waxaan hayaa fikrad taas oo ah in aan samaysano warshad yar oo soo saarta agabyo cusub oo suuq leh laakiin waxaan u baahanahay saaxiib ila maalgashta hindisahani isla markaana si wadajir ah ila shaqaysta. xilligaas sanadku wuxuu ku beegnaa 1908. Louisna waa 22 sano jir xoolana wuxuu ka haystaa $500. wuxuu Louis go'aan ku gaaray inuu dhammaan lacagtiisa ku maalgashado mashruucan cusub ee saaxiibkiis uu hindisay. laakiin maxaa dhacay? mashruucii waa uu guul daraystay labadoodana waxay khasaareen dhammaan lacagtii ay mashruuca geliyeen. dabcan tani fashil ma ahan ee waa bilowga guusha. laakiin Louis saaxiibkii ayaa doonay inuu Louis magdhow siiyo sababtoo ah asiga ayaa saaxiibkii Louis ku qanciyay in mashruucan lagu khasaaray maalgashto wuxuuna magdhowgii noqday xaqa farsamaynta mid ka mid ah wax soo saarka warshadda. Louis ayaa hor istaagay agabyadii warshadda dhex yaalay wuxuuna ka doortay khasaaradda dharka lagu mayro oo xilligaasi gacanta lagu maareynayay. Louis wuxuu kalsooni xoog leh ku qabay naftiisa wuxuuna aaminsanaa inuu khasaaladani ka dhigi doono mid ku shaqeysa korontada isla markaana goordhow laga rari doono bulshooyinka caalamka isticmaalada khasaaladaha gacanta lagu wareejiyo oo ay bulshadu ku rafaaday isla markaana u guuri doonaan khasaalad koronto ku shaqeysa oo raaxo leh. Louis ayaa u yimid fikradaasi adeerkii ka oo lagu magacaabi jiray Amory isla markaana ahaa nin hal abuur ah dhankan la iska leh warshad soo saarta mashiinada. Amory ayaa la amakaagay fikradda wiilkiisa oo uu la imaaday wuxuuna go'aansaday in wiilkiisa Louis uu kala shaqeeyo sidii loo farsameyn lahaa khasaalad ku shaqeysa korontada. dhowr tijaabo kadib Louis iyo adeerkii waxay ku guuleysteen in ay soo saaraan khasaalad koronto ku shaqeysa isla markaana dunida ka guurto khasaaladihii gacanta lagu maareynayay. Louis iyo adeerkii ayaa sanadkii 1911 aasaasay shirkadda Upton Machine Company taa oo soo saarta khasaaladaha korontada ku shaqeeya. waxaa shaqada ku soo biiray Frederick oo 20 sano jir ah. 3 sano ayuu Frederick mushaar la'aan la shaqaynayay adeerkii iyo walaalkii. 3 sano kadib waxaa saami ballaaran laga siiyay shirkadda shalay shaqaale mushaar la'aan ku shaqeeya maantana milkiile. kolkii 3dan ku guuleysteen farsamaynta khasaaladaha waxay u tafaxayteen sida ay ku suuqay lahaayeen wax soo saarkooda. shirkadda lagu magacaabo General Electric ayaa ka dalbatay shirkaddan yar ee curdanka ah in ay u samayso 100 khasaaladood. dabcan waa tiro badan marka loo eego shirkaddan yar. fulinta iyo farsamaynta 100 khasaaladood waxay u baahan tahay dhulka ballaaran kan hadda lagu shaqeeyo iyo lacag badan oo lagu iibiyo waxyaabaha ceyrinka ah ee laga sameeyay khasaaladaha. dhanka kale shirkadda Electric ayaa heshiis kula gashay shirkadda Upton ee farsamaysa khasaaladaha in ay waqtiga ilaaliso wixii lagu heshiiyeyna ka soo baxdo. halka dhanka kale shirkadda Upton aysan lahayn awood ballaaran oo ay kaga soo bixi karaan heshiiskaasi. si ay ugu guuleystaan labada walaal qandaraaskan isla markaan u helaan faa'iido badan dhankan ugu fogaadaan burburka heshiiska ay raadin u galeen qofkii maalgelin lahaa qandaraaska. nasiib wanaag waxay la kulmeen maalqabeen ka oo yaraantoodii beertiisa lagu xanaaneeyo fardaha ka shaqayn jireen. wuxuu ninkan taajirka ku maalgeliyay qandaraaska adduun dhan $5,000
lacagtan Luis iyo walaalkii waxay u suuragelisay in ay dhul ballaaran ku kiristaan bishii $60 dhanka kalena ku soo iibsadaan waxyaabaha laga sameeyay khasaaladaha. Luis oo kaashanay walaalkii iyo adeerkii ayaa gudagalay farsamaynta 100 khasaaladood, waxaana u suuragashay in ay soo saaraan 100 khasaaladood isla markaana ku wareejiyaan shirkaddii ka dalbatay, ayagana ay helaan xoolo badan. Laakiin nasiib darro waxay yeesheen khasaaladihii ceeb, taas oo keentay in Luis dib loogu soo celiyo 100kii khasaaladood. Luis iyo labadii la shaqaynaysay ayaa mar labaad dib u howlgalay, waxayna hagaajiyeen isla markaana meesha ka saareen ceebihii lagu sheegay 100 khasaaladood, waxayna dib ugu celiyeen ayagoo nadiif ah oo aan lahayn wax ceeb ah shirkaddii dalbatay. Tani waxay sababtay in shirkadda electric ee iibsatay 100 khasaaladood in ay ku farxdo howlkarnimada Luis iyo kooxdiisa, isla markaana ka dalbato 100 khasaaladood oo hor leh. Shirkadda Federal Electric ayaa ahayd shirkadda keliya ee iibsata khasaaladaha ay soo saarto shirkadda Upton, waxayna labadan shirkadood si wadajir ah u shaqaysanayeen muddo 3 sano ah. Laakiin 3 sano kadib waa ay sii socon weysay wada shaqayntooda, sababtoo ah shirkadda Federal Electric ayaa waxay bilowday farsamaynta khasaaladihii lagu yiqiinay shirkadda Upton. Sidaas daraaddeed waxay shirkadda Upton ee Luis raadin u gashay macaamiil cusub oo ka iibsada wax soo saarkooda. Laakiin Luis iyo kooxdiisa markay tashadeen waxaa u soo baxday inaysan la tartami karin shirkaddan Federal Electric ee suuqa ka boobtay, waxayna go'aansadeen in hawshooda wax ka beddelaan. Waxayna baadigoob u galeen maalgelyo cusub. Inta ay ku jireen raadinta shakhsigaasi ayay ogaadeen in warshad samayso hubka ay ku dhowdahay in ay kacdo ama shiido, milkiilaheedana uu doonayo inuu iska iibiyo. Luis iyo kooxdiisa ayaa tashteen, waxayna go'aan ku gaareen inay iibsadaan warshadda isla markaana hore u sii galaan suuqa hubka. Waxaa jiray bunduq udub dhexaad u ahaa wax soo saarka warshadda, waxaana lagu magacaabi jiray bunduqaasi Satranji. Qorigan ayaa sabab u ahaa in ay turanturooto warshadda, waayo ma uusan ahayn bunduq wanaagsan oo tayo leh. dhanka kalena wuxuu shirkadda u soo jeeday sumcad xumo, taa oo milkiilihii iska lahaa warshadda ku qasabtay inuu warshadiisa ka iibiyo Luis ayaa markii uu gatay warshadda wuxuu sir wadatashi la galay adeerkii iyo walaalkii Frederick, waxayna ku heshiiyeen in la tayeeyo isla markaana la qurxiyo bunduqa Satranji, dhanka kalena magac laga bedelo. Laakiin hawshan waxay u baahan tahay xoolo badan. Luisna lacagtii uu hayay wuxuu ku iibiyey warshaddan u baahan maalgelinta. Halka wuxuu noqday in Luis baadigoobo saamilyo cusub oo maalgashada warshaddaani. Wuxuu helay shakhsiyaad maalgashada warshadda, wuxuuna ku dhaqaaqay samaynta rasaas badan iyo horumarinta bunduqi Satranji. wuxuuna sababay isbeddelkaani cusub in shirkadda ku bacdo, isla markaana sanadkii ugu horreeyay ka hesho dhanka hubka lacag faa'iido ah oo gaaraysa $62,000, halka dhanka khasaaladahana ka macaashtay adduun dhan $18,000. Faa'iidadan waxay shirkadda Upton ka badbaadisay inay kacdo, dhanka kalena waxay u suuragelisay in shirkadda hor u sii socoto isla markaana horumariso wax soo saarkeeda. Sidoo kale waxay shirkadda yeelatay xuquuq milkiyadeed oo dhanka hal-abuurnimada ah, agabyada ay ku ciyaaraan carruurta iyo mashiinada yaryar ee gaadiidka. waxaana sanadkii 1930 geeriyooday Luis adeerkii, ka oo kaalin mug leh ka soo qaatay horumarinta shirkadda Upton. waxa ay sii wadeen Luis iyo walaalkii geedigii guusha, waxayna siyaadiyeen wax soo saarka shirkadda. dhanka kale waxay ku guureen magacii Upton ayagoon la baxay magaca maan dunida qabsaday ee Wireball. shirkadda ayaa kolkaani iibsatay shirkado yaryar oo farsameeyay khasaaladaha, waxayna noqotay shirkad weyn isla markaana sumcad ku leh suuqa elektriga. markii uu qarxay dagaalkii labaad adduunka, waxay shirkadda xoogga saartay soo saaridda hubka iyo rasaasta, waxayna faa'iiday xoolo badan. laakiin kolkii uu dhammaaday dagaalka, waxay shirkaddu ku soo laabatay hawsheedii khasaale samaynta, waxayna shaqadeeda ku soo kordhisay farsamaynta agabyo cusub sida kaawada dharka lagu feeraysto, makiinada qudaarta lagu shiido iyo faranjeero. Luis ayaa sanadkii 1949 ka fariisay shaqada, wuxuuna geeriyooday 3 sano kadib oo ku beegan sanadkii 1952. waxaana xilka agaasimka guud ee shirkadda la wareegay walaalkii Frederick, ka oo asigana geeriyooday sanadkii 1986. hadda shirkadda waxaa madax ka ah ninkan oo u dhashay dalka Jarmalka, isla markaana lagu magacaabo Markus Bitzer, ka oo shaqada shirkaddan ku soo biiray sanadkii 1999.